abiska loogu isticmaalka badan yahay caalamul islaami ayaa waxa ay jaajuusaan xogaha shakhsiga isticmaalaha applicationkan iyaga oo xogtan u gudbinaya ciidamada Mareykanka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawow daawade. sida ay sheegeen bulshaweynta islaamiga ah ee ku nool geyiga Mareykanka ayaa waxa ay baahiyeen xog ay ku sheegayaan in applicationska ay ku isticmaalaan moobiladooda ay isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyaga oo applicationskan ama abiskan xogaha uu ku isticmaalayo qofka isticmaalihii u gudbiyaan isla ciidamada Mareykanka. sida uu sheegay madaxa hay'adan oo lagu magacaabo Nihaad Awad ayaa waxa uu sheegay in gebi ahaanba ay joojiyaan isticmaalida applicationskan inta ay ciidamada Mareykanku ka sheegayaan ujeedada ay uga gol leeyihiin xogahani ay jaajuusayaan ee ay ka helayaan abiskan aynu ku isticmaalno moobilada dhexdooda. haddaba abiskan maxay kala yihiin? abka lagu magacaabo Muslim Bro waa mid ka mid ah abiska ugu caansan caalamul islaami. waxaa la download gareystay ama la soo degsaday in ka badan 95 milyan oo jeer. waxaa laga soo kala download gareystay in ka badan 200 oo wadan sida ay ku bayaamiyeen website-kooda Muslim Bro. applicationkan ayaa waxaa loo isticmaalaa inuu qofka muslimka xasuusiyo waqtiyada salaada una ogolaado halka ay ka xigto magaalada Maka ee qiblada. applicationkan waxa uu ogolaadaa inuu qofka isticmaalaha ah uu helo halka ay ka xigto Maka ama magaalada Maka. abkan waxa uu ka mid yahay kuwa jaajuusa xogta qofka muslimka. haddaba sida ay xogtooda ku bayaamiyeen bulshaweynta Mareykanka waxa kale oo ka mid ah ab kale oo caan ah oo laguna isticmaalo caalamul islaami. abkaasi magaciisa waxaa loo yaqaanaa Qibla Compass. waxaa download gareystay kuna degsaday moobilkooga in ka badan 5 milyan ama waxaa la download gareystay in ka badan 5 milyan ama 5 milyan oo jeer iyadoo laga download gareystay Google Play Store. dhammaan abiskan aan soo sheegaya ama abkan iyo abka kale ee Muslim Bro loo yaqaano waxa ay dhammaantood ku wada jiraan platformka ama meesha loo yaqaano Google Play Store. abiska kale ee jaajuusa qofka muslimka waxaa ka mid ah Prayer Time abka loo yaqaano, Qibla Compass, Quran MP3 and Eedan, Qibla Finder. abiska dhammaan waxa ay ka mid yihiin abiska jaajuusa xogta qofka muslimka. waa xogta qofka isticmaalaha kuna soo degsaday moobilkiisa. haddaba waxa aan idinku waaninayaa inaad iska ilaalisaan isticmaalida abiskan si aad u digtoonaataan una dhowrtaan xogtiinu mar walba inay ahaato mid ammaana. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.